barakaatu maalin wanaagsan meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada waa mar kale iyo Yasmin Yaasiin. Haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka naga ilaawin, haddii aad horey noola joogtayna muuqaalka like-ta nagu caawi si dad badan ay uga faa'iidaystaan. Maanta waxaan halkan uga hadli doonaa mowduuca shaashada idinkaga muuqda sida ujeedaan history taking waa mowduuc si khaas ah u khuseeya dadka xirfadlayaasha caafimaadka ama dhakhaatiirta ama ardayda barta kulliyadaha kala duwan ee culuumta caafimaadka. Haddaba waa muhiim cid walba oo ku dhex jirta majaalka caafimaadka in uu barto wayga saxda ah ama habka saxda ah ee qofka bukaanka markuu kugu soo booqdo xaruntaada ama isbitaalka sidii aad uga qaadi lahayd wareysi khuseeya markaasi xanuunka uu ka cabanayo. Haddaba waa maxay history taking? History taking is a process by which information is gained by a physician by asking a specific question to the patient. Waa process qofka xirfadlaha caafimaadka uu ku weydiinayo qofka bukaanka ah su'aalo khaas ah si uu markaasi u ogaado warbixin guudna uga ogaado markaasi cilada ama xanuunka uu ka cabanayo saxda ah xanuunka uu ka cabanayo sidii uu ogaado. Aim of history taking ujeedada laga leeyahay history taking maxaa weeye sababta uu bukaanka dhakhtarka uu bukaanka uga qaadayo wareysi la xiriira xaaladiisa caafimaad. Haddaba ujeedada waxa weeye si loo helo information muhiim ah kaas oo ku jihayn karta xanuunka saxda ah ee bukaanka uu haya kana caawin karta in uu dhakhtarka si fiican u daryeelo. Importance of history taking is obtaining an accurate history in the critical first step in determining the etiology of patient illness. History taking wuxuu ka caawinayaa inaad ogaatid sababta ka dambeysa xanuunka patientiga ama bukaanka uu ka cabanayo. Haddaba waxaa jira markii bukaan uu ku imaado oo aad ka qaadaysid wareysi la xiriira xanuunka uu ka cabanayo waxaa jirta 3 waxyaabood oo wareysigu inta aad wareysanaysid bukaanka ay tahay inaad martid. Mida koowaad waxaa loo yaqaanaa clinical history qofkii inaad bukaanka inaad wareysatid oo aad wareysi la yeelatid. Mida labaadna waxa weeye physical examination inaad bukaankii aad baartid oo aad markaasi adoo adeegsanaya qalabka caafimaadka ee markaasi abaaliya balka ama markaasi ku yaala. Mida saddexaadna waxa weeye investigation oo inaad bukaankii aad u dirtid baaritaano markaasi aad isleedahay xanuunka markaas uu ka cabanayo way ka saacidi karaan ama way ka caawin karaan si aad u ogaatid xanuunka saxda ah ee bukaanka uu ka cabanayo iyo weliba cabashada bukaanka intaba. A large percentage of time you will actually to be able to make diagnose based on the history alone. Qoraalkan wuxuu sheegayaa in 70% in wareysiga laga qaado ama lala yeesho qofka bukaanka ah ay kuu sheegi karto xanuunka saxda ah ee haya adoona wax baaritaana u dirin wax physical examination ama bukaankii aadan si shakhsiyana aadan u baarin kaliya wareysigaasi aad ka wareysanaysid afka 70% uu kuu sheegi karo xanuunka saxda ah markaasi bukaanka ku yimid uu ka cabanayo. Sidoo kale halkan waxaa la yiri history may be the only pointer to the diagnosis. Waxaa la yiri sidoo kale historygu wuxuu kuu sheegi karaa xanuunka saxda ah ee qofka haya. For example tusaale ahaan in angina pectoris xanuunka loo yaqaano angina pectoris ee xanuun ku dhaca wadnaha ah. Pain in the chest waxaa laga yaabaa bukaanka inuu ku dhaho xanuun baan ka dareemayaa chestiga ama xabadka. Isla markiiba markaa dhakhtar tahay waxaa kugu soo dhacaya evidence in bukaankan
uu qabo xanuunada loo yaqaano ischemic heart disease ama xanuunadan ku dhaca wadnaha. In the absence of other clinical or lab investigation, adoon bukaankii u dirin wax baaritaan iyo wax shaybaar aadan u dirin iyo wax computer aadan saarin, qalab kalena aadan ku baarin, baa kaliya wareysiga waxaad ku ogaan kartaa xanuunka saxda ah ee bukaanka haya. Sidaa daraadeed ayaa waxaa dadka xirfadlayaasha caafimaadka mar walba lagu baraarujiyaa in historyga markii ay bukaanka wareysanayaan ay wareysi fiican la yeeshaan, sababtoo haddii ay wareysi fiican la yeeshaan waxaa dhici karta in 70% ay wareysigaas uu kasoo dhex baxo xanuunka saxda ee bukaanka markaasi haya. Haddaba, how to take a history taking. The basis of true history is good communication between the doctor and the patient. Waxaa la dhahay historyga saxda ah waxaa base u ah in xiriir fiican uu ka dhexeeyo ama ay wada yeeshaan intii lagu jiro wareysiga dhakhtarka iyo patientiga. Waxayna u baahan tahay inuu markasta dulqaad badan, isfahmid iyo weliba la socosho badan. Halkan waxaa ku qoran oraah yar oo ah always listen to the patient may be telling you your diagnosis. Yani markasto aad patient bukaanka aad dagta u raaricisid waa markasta oo aad ogaan kartid xanuunka saxda ah ee bukaanka markaas haya. Sidoo kale approach of history taking waxaa kamid ah your look is important, like qofka dhakhtarka ah ama xirfadlaha caafimaad ee markaasi qofka bukaanka wareysiga la yeelanaya ee sida loo hayo iyo xaaladiisa caafimaad ka wareysanaya waa inuu yahay qof muuqaal ahaan maaragtay waxa weeye labiskiisu uu yahay qof macquul oo dhakhtar ah, sababtoo ah labiska qofku waxay ka qayb qaadan kartaa markaasi communicationka labada qof markaasi dhex mari karta. Sidoo kale introduce yourself and create a report, inaad maaragtay labada qof qofka kale uu isku sheego, masalan dhaho assalaamu calaykum, magacayga waa Dr. Hebel, bukaankan sidoo kale uu magaciisa saddexan u sheego dhakhtarka si markaasi waxa weeye maaragtay isbarasho hordhaca ah markaad halkaasi labada qof ay si fiican isku bartaan kadibna wareysiga si guud loo galo. Sidoo kale waxaa kamid ah be alert and pay full attention, yani labada qofba in gaar ahaan dhakhtarka qofka ah in uu bukaanka dhagta u raariciyo oo uusan meelo kale ku mashquulin oo uu ka dhuuxo wareysiga uu ka qaaday iyo cabashada bukaanka, sababtoo ah qofka markuu isbitaal imaado oo markaas xanuunsan yahay waxaa laga yaabaa dhakhtarka inuu maaragtay dhoosaan baa la ihayaa, xaggan baa la ihayaa, kan baa la iga hayaa. Marka waxaa muhiim ah qofka markaasi xirfadlaha caafimaadka inuu dhagta u raariciyo oo uu si fiican u dhuuxo bukaankan cabashadiisa. Approach of history taking waxaa kamid ah ensure consent has been gained, yani inaad si fiican aad u dhageysatid bukaanka, maintain privacy and dignity, in aad ilaalisid bukaankan. Waxaa jira qofka markuu isbitaal imaado oo dhakhtar la kulmayo uusan u sheego warbixino khaasa uusan jeclayn in dadka kale la wadaago, markaasina waa khasab in qofka dhakhtarka ah uu markaasi ilaaliyo privacyga bukaanka. Ensure patient as comfortable as possible, yani inaad qofka bukaanka ka dhigtid qof degan oo haadi ah si uu kugu sheego oo si daacad ah kugu waramo xanuunka loo hayo, gaar ahaan xanuunada iska khatarka ah ama dadku maaragtay lagu takooro badanaa bukaanka waxaa dhici karta inuusan sida saxda ah dhakhtarka ugu waramin. Sidoo kale summarize each stage of the history taking process, in stage walba markaasi meel walba markaasi aad leedahay bukaankaas waa meel muhiim ah inaad usoo maaragtay khulaasaysid ama usoo gabagabaysid ama gunaanadka wareysigiina uu noqdo mid aad ka qoratay pointiyo badan si aad u gaartid xanuunka saxda ah. Component of history taking. Haddaba history taking muxuu ka kooban yahay? Wuxuu ka kooban yahay patient profile. Patient profile waxaa laga wadaa in aad qortid qofka bukaanka magaciisa saddexan, da'diisa, lab iyo dhadig ku yahay, meesha uu degan yahay iyo wixii kale markaasi personal information ku saabsan ee bukaanka ah.
chief complaint inaad qortid qofkaasi cabashada uu ka cabanayo markaasi masalan hadduu ku dhaho waxaa layga hayaa waxaan dareemayaa qandho, madax xanuun, dhabar xanuun, markaasi cilada uu markaasi ka cabanayo inaad qortid. Mid saddexaad waxa weeye history of presented illness. Masalan hadduu ku dhaho kale bukaankii waxaan ka cabanayaa qandho, inaad qandhadiisii wareysatid, qandhada goormee ku qabataa, ma qandho aad u sareysaa mise waa qandho iska meel dhexaad ah, ma wax qandhada kuu kiciyaa jir inaad u wareystid. Past medical history inaad weydiisid in bukaankan ama qofkan kuu soo booqdo ee xanuunsanaya inuu horey u xanuunsanaa oo xanuuno kale uu qabo oo kale, masalan dhiig kar, sonkor, xanuunada wadnaha, keliyaha, inaad weydiisid haddii horey wax xanuuna ay u jireen. Sidoo kale midda shanaad waa inaad weydiisid haddii jiraan wax family history ah oo la xiriira xanuunku hadda ka cabanayo. Sidoo kale personal historyna iyadana waxay la mid tahay badda. Ciyaari cashirkii ku saabsanaa history taking ama waxa loo yaqaano wareysiga bukaanka laga qaado xilliga uu soo booqdo isbitaalka. qaybtii koowaad intaasay ku eg tahay, waa inoo muuqaalka xiga iyo cashirkii halkaa kasii socon doona. fadlan haddii aad muuqaalka heshay ama wuxuuna aad ka faa'iiday sii share garee, like tana nagu caawi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.